السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحن جواب عد أقدر يا جوار صوماليات شيغانيسا إن كبحدي دينك إسلامك عدنا الدعايدينيسا دينك إسلامك ينو محمد صلوات الله عليه وسلم أنيقو مسلمين تكن أقو علمي غير أقو ليتا أقو أخلاق ضحن أيضا دونيسا إن أقو جوابان سؤالها أي وضطو iyo dhibaatooyinka diinka u geysanayso in looga jawaabo ee ugu jawaabaan culimada muslimiinta qaasatan Soomaalida iyo aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay hortaada ilaahayna hay waafajiyo waxa khayr ah. waxaan leeyahay hortaada nabi maxamed salawaatullaahi calayhi wasallam rag baa kaaga horeeyay caytamay asigoo maqlaya weliba nabi maxamed salawaatullaahi calayhi wasallam. adiga uguma horeysid midda kow, bal waxaa la yaab leh raggii caayay khabuurtooda xataa meel laguma oga. taa waa xawaaye haddeen adiga ku siinaysa inaad diinkaaga ku soo laabatid, li'annahu haddii ay jiri lahaayeen ragga sida abi lahab, cutba, shayba, waliid ibnu mughira iyo wagayrihi dadkii la midka ahay, qubuurtooda meel laguma oga. nabi maxamedna salawaatullaahi calayhi wasallam afkaaga ku taagaysid ilaahay ha ku hanuuniye maskiin yahay inaad waalantaa aniga filaaye. qof wanaagsan sida uma hadlee, qof waalan baa sida u hadla. qubuurtiisa daqiiqad lagama maqnaado. haddaa beentay u malaysid caalamka waa shaashad maanta TV-ga ka daawo. adiga haddaa sidaa ku dhimatid ilaahay kuguma dila sidaase naar inaad gashid maxaan ku falayaa aniga? waxba kuma falaya, muslimiintana wax kuma falayaan. haddaad diinkaaga u soo laabatidna waa aday kuu fiican tahay. sidaa adiga u sheegto qofna naar ila magalaysaa dhahday. nabi maxamed salawaatullaahi calayhi wasallam daqiiqad shaashadaha ka daawo ayadoo live qabrigiisa qofna kama maqnaato. nin indha yar baa jooga, mid indha ku kuusan baa jooga, mid adig ku eg baa jooga ya. laakiin waliid ibnu mughira iyo dadkii hadallada ku hadlaysid ku hadlay meel laguma oga. ilaahay baa aasay asigan kor u qaaday li'annahu rasuulullaahi xaqun inuu yahay. taa ayaa kaaga cad. wamaa yandiqu cani ilhawa, iskamana hadlaya nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam ee wax ilaahaygiisa usoo waxyooday ayuu ilaahay ku hadlayaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. nabi maxamed amaan baa ku dhammaatay. dadka ugu badan caalamka, magaca ugu badan caalamka lala baxo waa maxamed. adiga hadday kaa dhaadhacsan tahay inay dadkaa waalan yihiin, ayagana waxaa ka dhaadhacsan adigu inaa waalan tahay. waxaad leedahay dimuqraadinimadu waxay ifaraysaa anigu inaan diimaha afaarahooda gelin. haddana diinteena islaamka ayaa kaa fagala. aniga waxaan ku leeyahay soo dhawow diinka islaamka, waa wax weyn oo wanaagsan. nabi maxamed salawaatullaahi calayhi wasallam abi jahl intaasoo sano intaasoo mar ayuu caynayay ama dhibaateynayay. abi lahab gabdhihii caruurtuu dhalay, gabdhihii nebiga bay fureen salawaatullaahi calayhi wasallam. haddana muxuu ku sameeyey? taa waxaa kaaga daran ninka ugu darnaay ugu naceebka badnaay nabi maxamed salawaatullaahi calayhi wasallam wuxuu ahay nin la yiraahdo saxaabigii wanaagsanay magaciisa acuudu billahi min ashaytaan arajiim. saxaabiga la yiraahdo dhalay mucaawiya, abu sufyaan baa ugu darnay. abu sufyaanna halkuu ku dambeeyey radia allaahu canhu. xumaan iyo xaasidnimo maxamed wax uguma qaadaysid calayhi salaatu wasalaam. buhtaan iyo been aawadatidna wax uguma qaadaysid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ee waxaan ku leeyahay gabar yahay
waaba dhiman doontaaye sida adiga aad leedahay aniga waxaan sheegaya hadday been yihiin soomaaliya aan tago xabad haligu dhufto biskooladan aniga xabadihii gashanaye war qofna kuma dilinaysa adiga toos u dhiman doona qof kasta meeshuu ku dhimanaya ilaahay baa qoray waad dhimanaysaa anagana waa dhimanaynaa asigana wuu dhintay man salawaatullaahi calayhi wasalam wuuna kaa sharaf fiican yahay diinka gurguurka iyo qur-aanka hadallada kasoo gurguurisay oo beenta iyo dadka inaad ku waashid aad rabtid waa wax aan sugnayn haba ahaatee bataatanba waxaaba sugnayn adigana kan kula doodayo muwaalan yahay adiga in lagu waaniyaa u baahan tahay ee in lagula doodo maba u baahnidbo liannahu maba taqaanidbo xataa bini aadanka waxay ka suurtoobin gaaladii hore waxaynu ku hadlin aa ku hadlaysaa anigana inaan ku hadla ma doonayo inaan dhegaystaaba qalad igu ahayd inaan ku hadlana maba doonayabo dadka ahlu naarka un keliya ayaa ku hadlo sidaa aniga aaminsanahe haddaa adiga aaminsaneenna waad arki doontaa inshaa allahu tacaala adigoona dhiman welibo bal laakiin maxaaba kuuga cagojugleynay waxaan ku leeyahay iska soo laaba diinka islaamka islaamku waa diin biis waa nabad haddaa u fahamtay inuu yahay diinka islaamka dil diinka islaamka wuxuu ku leeyahay iska dhici kan kusoo weerara cadowga muslimka iska dhici jiritaankaaga diidan adiga taas haddaa u fahamtay diinka muslimka in dadka lagu baabi'iyo waa qalad adiga kaa dhaadhacay iska fahan walaashayday oo soomaalinimada walaal ku nahnay wax diin nagama dhexay aniga adiga waxaana leeyahay halkan waxaan ugu tacsiyadeynayaa hooyada ee ayada dhashay muslimada muwaxidada ilaahay diinka ha ku suga ayada iyo ehelkeeda kale walaalaheeda kale ayadana ilaahay ha noo soo celiyo maskiintan way waalatay lacaga iyo adduunyada la tusay noocan oo kale waan garan waa nooca la iibsaday maskaxdeeda laakiin lacagta meelay kuu gasho ama meelay kuu tagto ayaan arki doonaa diinkana kuma baahna adiga boqolaal adigoo kaluu haystaa maanta diinka liskuguma yeeraye qof kasta asiga inuu imaado wabilaahi tawfiiq inaan kaaga jawaabo dee facebooka ma qaadanay waqti badan oo igu qaadanayaa inaan su-aalahayga kaaga jawaabo laakiin video kale kaaga jawaabi doonaa haddaad doonaysid soo codsa laakiin codsi adiga kaa imaaday waxaad dhahdaa jaahilkii muslimka ayaa aniga u jawaabayaa dheh culammada muslimka iska dhaaf aniga jaahilka muslimka ayaa kaaga jawaabaya wax kastoo adiga haysatid ebriye xunta salaamu calaykum dadka muslimiintahay